aad ayuu mahadsan yahay madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariye iyo maxaan ku golihiisa wasiirada golihiisa maxaan ku raadayay sharci dejinta baarlamaanka galmudug iyo guud ahaanba maamulka galmudug sidoo kale dadweynaha reer galmudug ayaa aad iyo aad u mahadsan soo dhaweyntii iyo qalbi furnaantii iyo marxabeyntii ay noo muujiyeen waa mid aad iyo aad noo taabatay annaga dhan sida dadka reer galmudug gaar ahaan caasimadda dadka degan aanay u soo kala harin oo ayaga oo dhammaystiran ay noo soo dhaweeyeen qalbi furnaan noogu soo dhaweeyeen aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin shacbweynaha dhuusamareeb iyo guud ahaan shacbweynaha galmudug intaba sida madaxweynuhu sheegay galmudug waa dowlad goboleed waxaana qaaday sida maamulada kale uu dhibaatooyinka qabatay dhinaceeda ka qabtaa laakiin dad firfircoon Soomaaliya dhexdeedana taariikh dheer ku leh haddana u taagan weli u heelan waaye dhulka galmudug ay ka kooban tahay in badana xor ah in yarna muxuu ahaa shabaabka cadowga ku harsan weli waana u taagan yihiin maalin walba meesha oo dagaalka cadowga lagu hayo aanu ka dhamaanin uu ka taagan yahay uu ka nool yahay oo maalin walba lala hor taagan yahay dadka ay ugu horeysaa galmudug hormuud ka tahay waxaan ka shaqayn doonaa u istaagi doonaa dalka sidii looga xoreyn lahaa cadowgaas maxaan ku yiraahdaa muddada dheer meesha ku daahay dadka reer galmudugna ay nabad u ahaan lahaayeen sida fariinteenu meel kastoo meesha hore soo marnaan ay u ahayd caasimadda intaan joognay iyo ballanqaadkii doorashadu ay u ahaydna waa mid weli Soomaaliya heshiisa marka waxay ka bilaabataa meel walba dadka jooga inay heshiis yihiin koonfur galbeedaan fariintaas u gudbinay reer galmudugna fariintaas oo kale aan u gudbinaynaa si aan cadowga uga adkaano si aan dowlad xoog leh oo Soomaaliyeed u helno annaga dadkeena waa inaan qalbiga isu xaarnaa qalbiga iskala jirnaa kadibna Soomaalida oo dhan muxuu ahay ay qalbiga haddana isku furtaa oo la iskala jiraa sidaas ayaanan muxuu ahay uga guulaysanaa cadowga marka fariinta aan la nimiday galmudug fariin nabadeed fariin dib u heshiisiineed fariin walaaltinimo fariin amni oo cadowga in la iska kiciyaa dowladda aniga aan madaxweynaha ka ahay oo ay shacabka Soomaaliyeed ii doorteen fariinteeda koobaad iyo teeda labaad iyo hortabinteeda koobaad iyo hortabinteeda labaad iyo teeda saddexaad waa amniga iyo in amnigaas aan gaarno himilada ah wixii ay u baahan yahay wuxuu u baahan yahay Soomaaliya heshiisa dunidana heshiis la awaayo laana Soomaalida dhexdeeda inay heshiis noqoto waaye dunidana waa u baahanahay waa aragnay kaalmadeeda u baahanahay in ayadana aan heshiis la noqono marka si Soomaaliya heshiis aan u helno waa in ayada ka bilawnaa dunida lama heshiin karno haddaan anaga dhexdeena heshiin cadowga iskama kici karno haddaan anaga dhexdeena heshiin meel kastoo ay Soomaaliya joogto fariinta aan maanta magaalada dhuusamareeb aan ka gudbinayo waxay tahay Soomaaliyay aan heshiino qalbiga aan ka heshiino heshiisidii waa la isku yimiday waa xabadka la is saaray waa la heshiye ahay oo aan ku soo jirnay muddooyinkii hore oo dhan waa noo shaqayn waayeen maanta meeshan u baahnaa waa qalbiga aan ka heshiino ilaahay idinkiis shacabka reer galmudug fariinta aan la wadaagaynahay waa taas waanan dhageysanaynaa duruufahooda gaarka ah haddii ay tahay midda abaaraha haddii ay tahay midda amniga haddii ay tahay culeysyada maxaan ku rahaa maamulka saaran haysta inaan la qaadno la wadaagno tala ka siino wixii aan maxaan ku irahdaa aan u heli karno garab istaagida maamulka aan la garab istaagno dadka reer galmudugna guud ahaan aan garab istaagno dhammaantood marka fariintaas ayaan u nimiday waan la joognaa dadkeena waa wareysan doonaa waana la kulmi doonaa aad iyo aad u mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu